وحنهاي وهديك دوسيدا وحنهاي وانا معلمك وحنهاي وهديك دوسيدا وحنهاي وانا معلمك واجي بريبا او بحلقا ورابشو واجي بريبا او بحلقا ورابشو وحنكو ورورينا ودنكينا وحبرتا ودنكينا وحبرتا وحنبار واجبكيس وحنبار واجبكيسا dugsiga sare ee Today Secondary School ee magaalada Hargeysa ayaa waxa uu munaasabad u qabtay ardayda kaalimo hore ka gashay dugsigaasi ee imtixaankii dhawaan laga qaaday ardayda dugsigaasi dhigata waxaana ardaydaasi la guddoonsiiyay abaalmarino kala duwan waxaana ka soo qayb galay munaasabadaasi ardayda lagu guddoonsiinayay abaalmarinaha kala duwan agaasimaha waaxda kormeerka ee wasaaradda waxbarashada agaasimaha waaxda shaqaalaha ee wasaaradda waxbarashada agaasimaha waaxda dugsiyada gaarka loo leeyahay ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Somaliland waalidiin macallimiinta dhigtay iskuulkaasi iyo badi ardayda dhigata dugsigaasi Today Secondary School ee magaalada Hargeysa ugu horreyn waxa halkaasi ka hadlay maamulaha guud ee Today Secondary School iyo mid ka mid ah macallimiinta dhiga dugsigaasi oo iyagu ardaydaasi hadallo dardaaran iyo wacdi gelin u soo jeediyay waxaana hadaladoodii ka mid ahaa waxaan ka raftimi lahaa iskuulka iyo taariikhdiisa iskuulada Today madaxdii furtay halkan bay fadhiyaan 2014 bishii 8aad ayaa la furay muddo yaro kooban ayay iskuuladani jiraan laakiin haddana waxbarashada tayada waxbarashada ay ku soo kordhiyeen aawadeed waxa la wada og yahay maanta halka ay wada marayaan bulshada Hargeysa gaar ahaan iyo madaxda wasaaradda waxbarashadu oo il gaara ku hayo iskuulkan way og yihiin maanta inuu baal dahaba kaga jiro waxbarashada wadankeena tiraba waxa u galay oo fariistay 3 fasal ama 3 lood oo fasalada ay dharka ayaa uga qayb galay imtixaanada waaweyn ee wasaaraddu ay qaado sanadkan waxa ku soo biiraya anagoo filina ardayda eedku inay ka sii farabataan intii hore imaka waxaanu filinaa waxa ku soo biiraya 2 fasal oo form 4 ah oo aad iyo aad aanu u hubna aqoontooda wasaaradda waxbarashaduna ay runtii ay had iyo jeer ay nagu dhiirigeliso in ardayda gacan lagu qabto Allahumma salli ala Muhammad marka iskuulkana waa iskuul caynkaas ah iskuulada kale wuxuu kaga duwan yahay number 1 tirada fasalada fadhida waa tiro kooban tirada fasalada fadhida waa tiro kooban fasalada Today Schools waxa fadhiya ugu badnaan 40 arday haddii ay ka farabataan waxa weeyaan wax laga yaabaa in la celiyo ama fasal kale loo furo iskuulkan wuxuu kaga duway iskuulada kale wuxuu xil iska saaraa marka hore xulashada macallimiinta uu sameeyo inuu u soo xulo ardayda u fadhida iskuulka macallimiinta yale dhammaan macallimiinta joogta iskuulkan Today Secondary School waa macallimiin heer jaamacadeeda waa macallimiin digrooga waxbarasho u soo dhamaaday waliba dhammaantood waa education waliba qaarkood waa master ku soo diyaariyay macallimiintaasi way dhageysanayaan way joogaan sacab bay leeyihiin in loo sacabiyo macallimiinteena aqoonta leh la soo xulay halkan aan garasho ku iman waad ogtihiin wasaaraddu way ogtahay macallimiinta laftooduna way ogyihiin iyaga nooga muqraatiya imtixaan baa laga qaadaa 100 qof baa soo fadhiista macallinka ugu aqoonta wanaagsan baanu qaadanaa taasina waxay noo soo jiiday in iskuulada kale la nooga yimaado iskuulka waxa sanad buu furan yahay u wada taagan heegan oo ah laga soo bilaabo maamulka iskuulka macallimiinta maamulayaasha weyn waxaan jeedaa mas'uuliyiinta wasaaradda waxbarashada ka socda iyo waalidiinta intii suurtagal ay u noqotay inoo yimaadaan inaan isugu nimaadno maamuuska iyo xushmeynta iyo qadarinta ardayda ka dhex muuqatay iskuulku waa arrin aad iyo aad u muhiim ah
bini aadamkuna had iyo jeer waxa uu horumar ku gaadhaa hadba sida loogu sameeyo taxfiiska iyo dhiirigelinta ilaahay baa subxaanahu wa tacaala ina leh falyatanaafasil ilmutanaafisuun ha soo tartamaan kuwa soo tartamaya jannada lafteeda ayaa tartan loogu jira waa imtixaan lafteedu jannada lafteeda imtixaan loo gelaya imtixaankana halkanaa laga bilaabayaa ee aakhiro natiijadun baa gacanta la iska saarayaaye laakiin goobta imtixaanka laga qaadanaya laga gelaya waa halkan taa haddaan walaaleel ka imaado unu imaado macallimku sidaad wada ogtihiin waa nolosha ama ruuxda ardayga waxa uu leeyahay 3 macallin saddexda macallin oo kow ka yahay waalidku waa macallinkiisa koobaad waalidku khayr badan Allah siiyo waa shay aynan abaalkiisa gudi karin oo bini aadam ilaahay subxaanahu wa tacaala marka hore uu naga dhigay waslad kamida jirkiisa umana abaad gudi karno abaalkiisa isaga oo aynu ka gaadhna halka uu rasuulku tilmaamay mooyaane sallallahu alayhi wasallam waxa uu rasuulku yiri waxa waalidka abaalkiisa gudo uun qofka helay isaga oo la kala iibsanayo oo adoon ahaan loo kala iibsanayo dadna intii isagu lacagta bixiyay yiraahdo waarniga ay siiyo waalidku waa qiimahaas uu leeyahay waana macallinkeena koobaad haddaanu waalid gacanta kugu hayninna maad soo gaadheen iskuuliyo goob waxbarasho toona ma timaadeen macallinka labaad ee ardaydu leeyihiin waa macallimiinta ay ugu yimaadaan fasalada iyo goobaha waxbarashada waxa ugu filan ilaahay baa subxaanahu wa tacaala yiri quraankiisa hal yastawi alladheena ya'lamuuna walladheena laa ya'lamuun miyay simeeyeen cidda aqoonta leh iyo cidda aan aqoonta lahayn ma sinne oo garan karaan ardaydu si fiican ayay u kala fahmayaan qofka jaahilka ah 10 sano haday la joogaan waxay ka faa'iidi karaan iyo qofka aqoonta leh 10 daqiiqo haday la joogaan waxay ka faa'iidayaan iyaga kala jarayo garanay macallimku waa qofka u taagan waa qofka labaad ee waalidka soo raaca ee diyaar u ah inaad ka sarreysad isaga ka badiso macallin waliba wuxuu nafisaa way joogaan ragii muddada dheer ku soo jiray waxbarashada waxaad farxad iyo reereyn iyo kala badasho kugu dhacaysa markaad aragto ardaygii yaraa ee u soo bilowday waxbarashada oo maxay hay'adan isagu haysta wasaaradan ka mas'uula shirkadan madax u ah isaga laga dambeeyo ayaad adigu laftaadu maxay noqonaysaa koordahaba xidhanaysa sharaf halkaas ka gaaray macallinku ilaahay baa yiri subxaanahu wa tacaala lama sinna macallinku dadka ujeedadeen maanta u fadhinaa waxa weeye ardaydii tartanka soo gashay ee kaalmaha hore ka galay fasaladooda iyo kuwii kaalmaha ugu sarreeyay ka galay iskuulka oo dhan sidii loo abaalmarin lahaa maadaama ardaygu dadaal fara badan uu soo galay halkan saaka waxay noogu martiya madaxdii wasaaradda waxbarashada agaasimihii waaxda kormeerka ee wasaaradda waxbarashada agaasimihii waaxda shaqaalaha wasaaradda waxbarashada agaasimihii waaxda bareefadada wasaaradda waxbarashada iyo mid ka mid ah waalidiinta ardayda iskuulka waxa kaliya noogu yimaadeen si ay farxadda ay nooga qayb qaataan waxaa sidoo kale munaasabadaasi ka hadlay mid ka mid ah waalidiinta dugsigaasi Sheekh Cabdulqaadir oo ardayda ku waaniyay inay wax bartaan sidoo kalena waxa halkaasi ka hadlay mid ka mid ah ardayda dhigata dugsigaasi waxaana hadaladoodii ka mid ahaa tacliinta oo dhan guud ahaan ilaahay waa ka yiri hal yastawi alladheena ya'lamuuna walladheena laa ya'lamuun ma simayhiin kuwa wax garanaya iyo kuwa aan wax garanin ma sina weeyaan istifhaamtaas ama su'aasha halka la weydiiyay ma sina way jawaabta waa iska garanaysaa xagga waxbarashada rasuulullaahi maxamed calayhi salaatu wassalaam markii ilaahay uu ku soo dejinayay quraanka salaadu amray masakadu amray ma amal kale amray waxa uu amray القراءة والكتابة قال الله سبحانه وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وذكرنا معنى هذا أرضيه هير وحي سوق على علمك ما دودك سرايهين أي قرآنك معنى يسيد ريميان وفي صومالي بضان الكوفة فاهنو أي نار وبصي باهنين آخر بالي لكن مقع إلهي كبلا وأكو آخر بالي الله كون كوردنا وري خلق هذا خلق كلا لويدي خلق الإنسان وكمرات كي يوجد وين الرسالة أي كوس عطا فرنت حق الله كتمت وبشر كويان خلق الإنسان من علق
ka abuuray markaa xinjir dhiiga ka abuuray iqra warabbuka alakram akhri baa ilaahay yidhi subxaana wa tacala nebi maxamedow rabbigaana waxa weeye ka deeqda badan deeqdan cilmiga ilaahay bayna siiyey subxana wa tacaala maskaxaynu ku garanno iyo caqli aynu ku garanno oo aynu wax ku fahanno ilaahayna siiyey indhahan iyo maqalkan jacala lakum asamca waalabsaara waalaf'ida qaliilan maa tashkuruun bini aadan waxaa la yidhi waa shukrigiisu aad buu yaryahay intaas marka laga yimaado waxaynu soo qaadanaynaa hal xadiid oo aan ku dhiiri gelinayno markaa ubadkeenna iyo carruurteenna si ay khayraadka ay hore ugu sii socdaan oo ay tallaabo hore ugu sii qaadaan qaala rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam fii xadiidin rawaahu albukhaariy xadiid uu bukhaari wariyey nebigu wuxuu uhi innama alcilmu bitacallum cilmigu waa barasho tacallum waxa weeyaan markaa calaa wasni tafacul juhdi baa ku jira iyo dadaal waxaan salaan qaali ku salaamayaa marti sharafta ka socota wasaaradda waxbarashada ee jamhuuriyadda somalilan iyo maamulayaasha iskuulka iyo macalimiinta iskuulka iyo ardayda dhigata iskuulka sare ee Today Secondary School dhammaan waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaanka bacdi ilaahay waa mahadle alxamdulillahi rabbil caalamiin waxaan mahad gaar ah siinayaa madaxda ka socota wasaaradda waxbarashada ee jamhuuriyadda somalilan ee waqtiga qaaliga ah iyo shaqooyinkoogii inooga soo huray si ay inooga soo qaaligadaan xafladeena wanaagsan ee qiimaha badan aad iyo aad baan u mahadnaqaynaa rasuulku wuxuu yidhi sallallahu calayhi wasallam qofka aan bini'aadamka u mahadnaqin ilaahay subxaana wa tacaala uma mahadnaqo anoo hadalka sii dheeraynayn soomaali waxaa ku mahmaahdaa hadal madahaama buuxsho nin hadal yar yidhina hadal waxba kamuu tegine hadalkii u dhammeeyey anoo kelmadayda soo koobaya waqtiguna aad u yaryahay waxaan ka hadli doonaa ahmiyada ay leedahay aqoontu sida ay noo sheegaan macallimiintu iyo maamuluhu iyo sheekhu iyo culummadu aqoontu waa shay aad iyo aad u wanaagsan oo waxaan ku yidhi dadka qofka aqoonta leh ay aqoontu ku hagayso akhlaaqda wanaagsan iyo dhaqan wanaagsan anoo ku hadlaya afka ardayda iskuulka Today Secondary School aqoontu waa shay aad iyo aad u wanaagsan oo cajiiba marka ardayda waxaan ku moorgelinayaa meel kasta joogaan inay aqoonta ay ku dadaalaan aanay bartaan intaasi kadib waxaa munaasabadaasi soo gabagabeeyey agaasimaha waaxda dugsiyada gaarka loo leeyahay ee wasaaradda waxbarashada ee Somaliland isagoo halkaasi hadallo ka jeediyey ayaa waxa hadaladiisii ka mid ahaa waa aroor wanaagsan oo aynu isugu nimid in dhalinyar ka mid ah habliyeynamadaba wixii dugsigu u gartay inuu ku abaal mariyo iyagoon ahayn kuwii ugu horreeyey ahayna kuwii ugu dambeeyey ee sanad walba dafcad la sugayo nolosha gebigeeduna ay iska tahay tartan runtii hawlo badan baanu lahayn idinkuna hawlo badan baad leedihiin wa khayru lkalaami maa qalla wadalla waxay ahayd murtida ugu weynee ku jirta waxbarashadu waxaan nahay waadiga dugsiyada waxaan nahay waanada macallinka waagii baryaba ubax laga waraabsho waxaan ku warwaraynaa waddankiinna waxu qabta waddankiinna waxu tara oo ka jira waxyeellada wahsan mayno waaban mayno warwareegi mayno weecweecan mayno waanu saasidaan u garanayn heestii waadiga waan ku wardiyeynaa baaraka allah fiik waxay markaa murtidu tahay aqoontu wax sahlan maaha aqoontu waa ta qofka u ah hub iyo haybadba waana hanka iyo himilada iyo hiigsiga laga rabo ilmo kasta inuu ku waajiyo maxaa yeelay dugsiyada maxaa keenay baahi baa keenay baahida keento waa maxay waa baahi aqooneed iyo in lala dagaal galo aqoon darrida innagana waxaa layna yidhi waa maalintii akhriskiyo qoraalka innaguna akhriskiyo qoraalka nebi maxamed ayaa lagu bilaabay iqra waa maalintii faraxalka innagoo 5 jeer maalintii tukanoo weysaysanna
ayaa layna yidhi waa maalintii farxalka waxaynu leenahay qoladaa waa maalintii istinjada idinkana maalintii istinjada markaa maaha innaga caqligeenna in majaroor laga sameeyo oo waxaan jirin laynaga dhaadhacsiiya maadaama aynu aqoon leenahay aqoon baan leeyahay iyo waxaa lay barayaa farxalku waa laba kala fog wey oo waliba qasabadii iskuullada laga bilaabay leeyahay gacmaha soo dhigo waa 5 jeer baan anigu tukadaa maalintii 5 webi baan galaa adaa nijaasaysan oo soo istinjo waa tadhabtaa kow maalintii akhriska waxaan leenahay iqra alladii callama bilqalami callama al-insaana maa lam yaclam caqligu kelidii awood ma leh waxna ma taro haddaanu aqoon wadan qalinkan wuxuu soo kordhiyey waxaanad ku haynin caqliga dabeedna wuxuu noqday awood iyo baawar lagu tartamo ilaa dayaxa waxaynu nahay sidaad ogtihiinba dugsiyada baahidaasaa loo samaystay waa halka lagala socon karo dhaqan xumada waana halka lagu daafaco dhaqan xumada waayo dhaqan faafid baa ina soo gashay ama surwaal yuuban ama madax yuuban ama laba dhako ama laba dhanxiir waxaasoo dhammo waxa dugsiga lagula dagaalamayo gabagabadii waxaa halkaasi lagu guddoonsiiyey ardayda kaalimaha hore ka gashay imtixaankii sanad dugsiyaadka ee dugsigaasi Today Secondary School ee dhawaan laga qaaday ardaydaasi sidoo kale waxaa iyaduna abaalmarintaasi ka duwan la guddoonsiiyey ardaydii ugu sareysay dugsigaasi oo iyadoo halkaasi maamulaha guud ee dugsigaasi sheegay inay sanadkan oo dhan ay ku dhigan doonto bilaash dugsigaasi Xamse Jaamac Xuseen Awowo